guusha Ilhaan Cumar ee aqalka Koongareeska ayaynu doonaynaa inaynu ka eegno saddex qodob. Inta aynu saddexda qodob ka eegin, marka hore waxaynu uga hambalyeeynaa guusha taariikhiga ah. Waxaan leenahay hearts of two, kudos to. Waxaan leenahay hambalyo, waynu hambalyeynaa. Hambalyo kadib, imisa jeer ayay Ilhaan ku guuleysatay kursigani? Labo, tartan noocee ah ayay wajahday Ilhaan Cumar si ay u guuleysato kursigani? saddex, maxay kaga dhigan tahay dadka Soomaaliyeed guushani iyo in ay kursigoodii mar kale difaacdaan? imisa jeer ayay Ilhaan kursigani ku guuleysatay? tartan aad u adkaa oo ay martay, Ilhaan ayaa mar kale ku guuleysatay. Ilhaan ayaa difaacatay kursigii ay horay ugu fadhiday, ayadoo ahayd mudane ka tirsan aqalka Koongareeska. markeedii afaraad ayay ku guuleysatay kursigani. markeedii afaraad ayaa waxay ku guuleysatay matalaada degmada shanaad ee Minnesota ee xisbiga dimuqraadiga. Ilhaan in markeedii afaraad ay ku guuleysatay kursigani waxa ay ku tusaysaa in waxa weeye ay bixinayso dadaal adag iyo inay tahay qof dhiiran oo waxa weeye aanan looga guuleysan karin si fudud. qof dhiiran, qof adag, karti leh in ay tahay ayay taa iftiiminaysaa. tartan noocee ayay wajahday sanadkani? maxaa sanadkani xiisaha gaarka u yeelay ku guuleysiga kursigani ee Ilhaan Cumar, maadaama ay 4 jeer oo horeyba ay ku guuleysatay? sanadkani waxa u yeelay xiisaha gaarka ayaa wuxuu yahay waxa ay la tartamaysay nin la yiraahdo Don Samuel, ninka oo madow ah, asalkiisana ka soo jeeda Jamaica. ninkani ayaa ahaa ninkii kalkii hore ee 2022 ay ka guuleysatay. ninkani ayaa sanadkani waxa garab weyn siinayay dad ka mid ah xisbigeeda dimuqraadiga iyo dad kale oo ka soo horjeeda oo xisbiga kala ah, ayaa waxay ku bixinayeen dadaalo aad u tiro badan iyo dhaqaale badan si waxa weeye kursigani looga gacan maroojiyo Ilhaan. dadaalada ugu badan waxa bixinayay oo kursigan bumbuuninayay, doonayayna inay Ilhaan kala wareegaan ayaa waxa weeye Yuhuudda oo Mareykanku ay cilaaqaad wanaagsan ka dhaxeeyaan. ayaa Ilhaan waxay tahay qofka kaliya ee Koongareeska ku jira ee Yuhuudda waxa weeye si cad u dhaliilay ama ka hor yimid amaba sheegay tacadiyada ay sameynayaan. sidaa darteed waxay ku dadaalayeen in kalkani ay kursigani ku soo bixin oo waxa weeye ay reebaan oo dhaqaalo iyo awoodba ay ku bixiyaan. taana waa sababta kalkani kursigani xiisaha u yeeshay ee adkaysay. laakiin waxa cajaa'ibka lahaa ayaa waxay ahayd markii la tiriyay codadka ayaa Ilhaan waxay heshay 99% markii la tiriyay codadka. Ilhaan ayaa waxay heshay 67,524 cod, taa oo ka dhigan boqolkiiba in ka badan 56.2 ayay heshay. ninkani marka sidaa ayuu ku haray oo ay dhulka ugu jiiday Ilhaan. sanadkani waxa tartankani xiisaha u yeelay inuu ahaa dadaalo badan oo ay ku bixinayeen Yuhuudda iyo dadka kale ee la halmaala sidii kursigani looga qaadi lahaa gabadhan Afrikaanka ah ee Muslimka ah ee Soomaaliga ah ayay ahayd. tan saddexaad ee ah guusha Ilhaan maxay kaga dhigan tahay ummadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka iyo guud ahaan Soomaaliduba? waxa ay kaga dhigan tahay in ummadda Soomaaliyeed ay yihiin dad power iyo awood leh, kuwa oo difaacan karayo kursigooda. waxa weeye 4 kal oo isku xigta in kursigoodu ay difaacdaan Soomaalidu waxay u tahay sharaf, karaamo ayay u tahay. waxa kale oo tusaysaa ummadda Soomaaliyeed wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. haddii Soomaalidu ay midoobaan in ay wax waliba qabsan karayaan oo ay meel gaari karayaan oo waxa weeye ay adduunyada wax la qaybsan karayaan haddii midnimo iyo waxa weeye isku duubni la helo. waayo gabadhani waxay heshay Soomaali isku duuban oo garab siisay iyo waxa weeye ajaanib. waxay heshay Soomaali isku duuban oo garab taagan. sidoo kale waxay haystaa dad badan oo ajaanib ah oo xisbigeeda ka tirsan oo aad u taageeray. taana waxay tusaysaa kartideeda. sidoo kale waxay tusaaleynaysaa in gabadha waxa weeye ay tahay untouchable, lama taabtaan. gabadha inay tahay lama taabtaan inay tahay oo kursigeeda markii afaraad ay waxa weeye markii afaraad ee Koongareeska ay dhacsanaysa kursigeeda. taana waxay tusaysaa karti iyo waxqabad inay leedahay. waayo qofku la iskama doorta, laakiin dadku waxay ku doortaan waxqabadkiisa, kartidiisa iyo saameynta uu ku dhex leeyahay
bulshada uu matalayo. hadduu qofku waxa weeye bulshada uu saameyn iyo waxqabad uu ku dhex yeelan waayo, ka labaad ama mar labaad cid dooranaysa ma lahan. waayo halkani ma jirto waxa weeye xildhibaano laaluush la siinayo oo jeebka wax loo gelinayo oo keliya fiirinaya habeenka lacagta ay qaadanayaan ee aan mustaqbalka eegaynin ma ahan. meesha waxa weeye qof iyo cod. shacabka ayaga ayaa kuu codaynaya, waxayna kugu codaynayaan sidii aad adiga isaga gado, sidii adiga aad u tusto inaad tahay qof muhiima, qof wax qabad leh, ama ay kuu arkaan ayuunbay kugu codaynayaan. gabadhan marka waxay matashaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool cariga iyo Mareykanka, iyo waxa weeye ummadda kale ee Soomaaliyeedba way matashaa, maadaama ay halkaas waxa weeye ayadu noo joogto. wayna noo wacan tahay in waxa weeye waxayna noo tahay inagu guul iyo sharaf bay noo tahay. kursigan marka ay gabadhani haysato 4 sanana waxa weeye ay ku soo baxday ma ahan kursi cidlo ah, waa kursi la isaga baahan yahay dadaal aad u tiro badan iyo waxqabad, maadaama dalkaagi dal aan ahayn, dal aad shalay qaxooti ku gashay aad ka tartamayso, waxaad u baahan tahay in dadaal badan aad bixiso. gabadhani marka dhowr iskoorba way heshay. waa gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed waa gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee fariisata aqalka Congress-ka. waa gabadhii haddana waxa weeye 4 jeer oo isku xigta xilka ku guuleysatay Congress-ka. iskoorka kale haysata waxay tahay waa gabadha labaad, ayada iyo gabar kala filaya, waa gabadha labaad ee muslim ah oo madow ah oo Congress-ka fariisata, muslim ah oo Afrikaan ah oo Congress-ka fariisata. waa tahay marka taana waxay ku tusaysaa in gabadha waxa weeye wadanka inay ku leedahay awood iyo power. madaxweynaha haatan xilka wacad ee Trump waa gabadhii har iyo habeen had iyo gooraalo uu mayga la qaadan jiray. maadaama madaxweynaha uu dalka mayga la qaadanayo uu la doodayo, waxay ku tusaysaa in gabadha waxa weeye awood iyo saameyn lahayd. waa gabadhii ka keentay, waa gabadhii hiidka gaarsiisay Trump heer ilaa uu yiraahdo Soomaaliya waxa weeye nabad kama jirto, waxa weeye safety ma lahan, waxa weeye mayg caadi inuu noo qaata. gabadhii ku kaliftay wey. macnaha waxay tustay dadka Soomaaliyeed in ay yihiin dad power leh, karti leh, awood leh, wax ka dhacsan karo. sababtu Soomaaliya u maagayayna waxay tahay gabar yar oo Soomaaliyeed inay waxa weeye Congress-ka ku dhibtay, oo waxa weeye had iyo goora har iyo habeen labadooda ay tirsadaan isu jawaabaan. marka waxa weeye sharaf iyo karaamo ayaan leeyahay, guul iyo gobonimo insha Allah tacaala. marka shanaadna waad ku guuleysan doontaa kursiga. waxaan rajaynayaa insha Allah markii shanaad in aynu difaacno kursiga, maadaama inagu aynu leenahay oo haatan wixii ka dambeeyo uu noqdo kursi dhaxaltooyo oo waxa weeye aan